Horda. Cilmi baarayaal ayaa sameeyey robot cusub oo bartay dhaqdhaqaaqa bushimaha si uu u hadlo iyo xitaa u heeso isagoo ka bartay dadka bini'aadamka ee ku jira muuqaalada YouTube-ka halkii uu ka raari lahaa heerar hore loo sii dejiyey. Tani waa horumar weyn oo ka caawin kara robotyada mustaqbalka inay noqdaan kuwa dabiici ah oo dareen leh marka ay la falgalaan dadka. Muhiimadda dhaqdhaqaaqa bushimaha ee isgaarsiinta. Marka dadka ay si foolka fool ah u hadlaan, qayb weyn oo fiiro gaara la siiyo waa dhaqdhaqaaqa bushimaha. Laakiin robotyada muddo dheer ayaa ku dhibtooday inay si dabiici ah u soo saaraan dhaqdhaqaaqan muhiimka ah. Robotyada ugu horumarsan badanaa waxay isticmaalaan dhaqdhaqaaqyo adag oo aan dabiici ahayn, taasoo ka dhigaysa inay u muuqdaan kuwo kartoon ah ama aan macquul ahayn. Dhaqdhaqaaqa wejiga, gaar ahaan bushimaha, waa mid aad muhiim u ah isgaarsiinta bini'aadamka. Qaladaad yar oo ku yimaada dhaqdhaqaaqa wejiga ayaa si fudud loo dareemi karaa, taasoo ka mid ah sababaha robotyada qaarkood ay u muuqdaan kuwo aan dareen lahayn ama cabsi leh, una canifaaley. Robotka baranaya dhaqdhaqaaqa wejiga. Bishii Janaayo 15, koox cilmi baarayaal ah oo ka tirsan Columbia Engineering ayaa shaaca ka qaaday robot cusub oo bartay sida loo dhaqaajiyo bushimaha si uu u hadlo una heeso iyadoo aan la isticmaalin heerar hore loo sii dejiyey. Robotkan wuxuu ku bartay dhaqdhaqaaqa wejigiisa isagoo daawanaya muraayad, isagoo fahmay sida laboolihka matoor ee wejigiisa u shaqeeyaan si ay u sameeyaan muuqaallo kala duwan. Kadib, robotka ayaa daawaday saacado badan oo muuqaalada YouTube ah si uu u barto sida bushimaha dadka ay u dhaqaaqaan marka ay hadlayaan ama heesayaan. Tani waxay siisay awood uu si toos ah uga turjumo codka dhaqdhaqaaqa bushimaha, sida robotku u baranayo isagoo daawanaya. Samaynta dhaqdhaqaaqa bushimaha ee macquulka ah waa hawl adag sababtoo ah waxay u baahan tahay qalab casri ah oo dabacsan iyo matooro yaryar oo si degdeg ah oo aamusan u shaqeeya. Sidoo kale, waxaa muhiim ah isku dubarka saxda ah ee codka iyo dhaqdhaqaaqa, maadaama bushimaha ay la socdaan codadka iyo dhawaaqyada si degdeg ah isu beddelaya. Robotka waxaa la dhigay hortiisa muraayad, wuxuuna sameeyey kumanaan muuqaallo iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo wejigiisa ah. Tani waxay u oggolaatay inuu barto xiriirka ka dhexeeya dhaqdhaqaaqa matoorada iyo muuqaalada wejiga, barashada luuqadaha kala duwan iyo heesaha. Markii uu fahmay sida wejigiisu u shaqeeyo, robotka ayaa daawaday muuqaallo dadka ku hadlaya iyo kuwa heesaya. Nidaamka ayga ayaa bartay sida bushimaha ay u beddelaan qaabka iyadoo ku xiran codadka kala duwan. Inkastoo aanu fahmin macnaha codka, robotku wuxuu awood u yeeshay inuu dhaqaajiyo bushimihiisa si waafaqsan codka uu maqlo. Waxaa jiray caqabado gaar ah sida dhawaaqyada adag ee iyo dhaqdhaqaaqa bushimaha ee u baahan in la isku soo dhoweeyo sida uu, laakiin cilmi baarayaashu waxay filayaan in kartida robotku ay sii fiicnaan doonto waqti kadib. Muhiimadda dhaqdhaqaaqa bushimaha ee isgaarsiinta robotyada. Kooxda cilmi baarayaasha waxay aaminsan yihiin in dhaqdhaqaaqa bushimaha uu yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah isgaarsiinta robotyada si ay u noqdaan kuwa dabiici ah oo dareen leh. Marka kartida dhaqdhaqaaqa bushimaha lagu daro iyada wada sheekaysiga sida Chat ama Gemini, xiriirka u dhexeeya robotka iyo bini'aadamka ayaa noqonaya mid qoto dheer oo macno leh. Mustaqbalka robotyada wejiga leh. Cilmi baarayaashu waxay rumaysan yihiin in wejiyada robotyada ee la midka ah bini'aadamka ay noqon doonaan kuwo aad muhiim u ah marka robotyada loo isticmaalo madadaalada, waxbarashada, caafimaadka iyo daryeelka dadka waayeelka ah. Waxaa la saadaalinayaa in ka badan 1 bilyan oo robot humanoid ah la soo saari doono 10 sano ee soo socda. Mas'uuliyadda iyo khataraha. Kooxda cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale ka digaya in horumarkan uu leeyahay dhinacyo anshaxeed oo muhiim ah, maadaama robotyada awood u yeelan doonaan inay si dareen leh ula falgalaan dadka. Waxaa lagama maarmaan ah in horumarkan lagu sameeyo si taxadar leh si loo yareeyo khataraha isla markaana faa'iidooyinka la helo. Gunaanad. Robotkan cusub ee bartay dhaqdhaqaaqa bushimaha isagoo daawanaya dadka bini'aadamka ah ayaa calaamad u ah horumar weyn oo ku saabsan sida robotyada mustaqbalka ay u noqon karaan kuwa dabiici ah, dareen leh, isla markaana si wanaagsan ula falgala dadka. Tani waxay fure u noqon kartaa isgaarsiin robot bini'aadam oo qoto dheer oo macno leh.